السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan sameyneynaa baradho iyo cheese. Marka waxaan soo qaadanay baradho 2 xabo ah. Baradhada waa soo karsanay, biyo ku soo karsanay. maxaan lahaa kadibna saxankaas ku soo ridanay. Waa jajabinaynaa. aad u jajabinaynaa. waxa yar oo gurigaaga ku yaala kaliya ayaa wax qurxoon laga soo saari karaa. qofkasta naga mid wax waaye maalmahan bando waa jiro marka adeega guriga la iska soo dhigtay marka maalinba waa in afurka nooc laga dhigaa. maanta waxaan ku afuri doonaa haddii Ilaahay idmo baradho cheese la dhex geliyay aan wax kale oo qudrada lagu darin kaliya. waxaan ku dari doonaa galleyda diyaarsan ee gasacadaha ku jirta ama bacda. marka taasaan ku dareynaa haddii Ilaahay idmo iyo spiceska waxaan ka wadaa maxaan lahaa baharaadka ama raashinka dhirta lagu daro. marka baradhada hadda jajabsanay maxaan lahaa kadibna waa isku dari doonaa. baradhada waa jajabiyay diyaar waaye oo ujeedaan haddana ayada aan soo jajabiyay galleyda waatan cheese waa kaas kan waa baharaadkii waa black pepperki kamuunki maraq digaaga basbaaski iyo xawaash dhuudhuub intaas waaye. raali ahaada Soomaaliga iyo Ingiriiskayga isku dhex jira dabcan waa fahmaysiin laakiin waxaan isku dayaa in badan inaan Soomaali ku hadlo af Soomaali saafiya la imaado insha Allah. hadda baaquli nadiif ah soo qaatay waxaan ku shubtay baradhada aan soo jajabiyay. kadib waxaan ku darsan doonaa galleydi ay idin sheegay wax yar koob halfkiis ama wax yar oo qiyaas adiga inta gurigaaga ku filan adiga taqaanid. kadib waxaan ku dari doonaa cheese nooc waa soo xoqay cheese-kaas waxaan rabaa inaan hadda intaas qabto aan isku dhex walaaqo haddii Ilaahay idmo si fiican. markeetada markaas wax ma ku tarayso gacanta looga calamaalaa maxaan lahaa si aan si fiican isku dhex geliyo aad ay iskugu jajabto ma garateen. soo markaa ilaa iyo cheese-ki iyo baradhadii iyo maxaan lahaa galleyda isdhex galaan isku dhex mirmirqaan waa walaaqa sababta walaaqayna waxay tahay haddii kale galleyda kor soo fulfuulay. maadaama baradhada bisashahay waa si yar xoogaa waxay rabtaa 2 daqiiqo in la walaaqo oo aad la isku dhex geliyo. kadibna maxaan lahaa Ilaahay aad ku roonyaa waxaan ku soo darsan doonaa maxaan lahaa kabsar caleenti karateen iyo xawaajiyaashii. marka si fiican hadda isku dhex geliyay waa diyaar. xawaashiyadii aan rabaa hadda inaan ku soo darsado waa kuwana xawaashka iyo maxaan lahaa filfil madowda imaaji basbaas yani qof kasta wuxuu jecel yahay. qofkaana jeclaan dadka qaar filfisha ma jeclo dadka qaar xawaashka kala nooc ah ma jeclo. aan marka waa jeclahay waxaan jeclahay filfisha inaan ka badiyo markii la dubo kadib ay uga soo carafto. marka waxa oo madowga ka dhigay hadda filfisha waaye xawaashiyada kala siiyaan laakiin filfisha raashinka xoogaa way madoweysa. marka waa isdhex gelinaa yar kadibna waaba diyaarba hadda waa diyaar soo jeedaanba. kabsar caleenti haddana ku soo dhex daraa qofka rabo wuu jarjaran karaa qofka rabo waxa waaye wuu shiidan karaa kabsarta laakiin maadaama waxa aan sameynayna baradho tahay marka anfacayso inaan kabsarta soo shiidato ayadoo laamo ah maxaan lahaa caleenta sare leh ku soo daray. marka hadda waa diyaariyay meeshaan waxaan ku haystaa bur iyo biyo iyo cusbo yar intaas isku soo walaaqaa. marka baradhada kuskuusaa raba inaan dhexda ka geliyo burki hadda burkaas soo qasay oo ujeedin waa diyaar. baaquligaas yarka waxaa ku haystaa cheese
oo murabbac ah 3 geeska triangle-ka taa u taqaaniin oo rootiga la marsado oo aan soo jarjaray ka hadda baradhada yaa kasir ka soo qaadaa waxaan sameynaa baradhada ballaarna dhexda waxa ugu ridaa cheese-ki si adhowda cheese-kaas wuxuu ka dhigaa maasha Allah test cajiib uu siinaa magarata dhadhan macaan oo kaala iska araga kadibna waxaa haystaa baaquligaas iigu jiro saxankaas iigu jiro rootiga la shiiday rooti shiidan ama rooti la qalajiyay oo lasoo shiiday ama asoo diyaarsanaa la helaaba meelaha joogna asoo diyaarsanaa la helaa marka cheese-kii baradhada soo dhexgelinaa maxaa la dhahaa kan ay tuso kadibna isku soo laabaneynaa insha Allah waan soo diyaarinaa aan soo wada dhameeyo aan isku soo laabaneynaa oo wax fudud qof kasta sameyn karto aadna u macaan waxaan rajeynaa inaad ka heli doontaan nafaqo camal waaye Soomaaliya nafaqo way jireen marka waxa waaye nafaqo camal waaye qof kasta sameysan karto ilmaha u roon tahay garabka casri ahaan dhac hadaartid afur soo jeceshaa yani marka hadda waxa waa isku soo laabaneynaa hadda waa kana waa soo sameeyay wixii oo dhan soo kuuskuusay hadda waxaan sameynaa rootiga shiidnaa iyo waxaan lahaa burkii aan soo qasanay isdhexgelinayna kuwa burkaan ku ridaa kadib baa rootiga ku ridi doonaa insha Allah marka farkeeta uga bixinaysa sababtoo baradhada way jilicsan tahay gacanta kuma qaban kartid way ka buusmeen fahmay soo marka waa inaan burkaas geliyaa waxaan lahay farkeetadaas oo bixiyaa kadibna maxaan lahaa rooti ku shubtaa rootiga xusiina yani saas hadda baradhada transrido ugu ridaa way kala tagay ma fahantay laakiin rootiga isku haynaa maxaa lahaa testina wuu siinaa magartay haddaa rabtid rootiga ku saas yahay qofka cusbada jecel cusbeer qofka uga sii darsan karaa si hadduu qofka markuu carabka saaraba dhadhanka dhanaanka uu dareemo laakiin ani ma jecel cusbada tirada badan maxaan lahaa saas baan yeeli doonaa insha Allah waa rootiga saas ugu shubaa kadibna saxankaas kala saaraa si uu u leersado saliidda hore loogu ridi karo hadda waa tanaa birtaawada dabka ii saaran raali noqdo afarna waa la sameynooyaa waxna waa la duubooyaa hawsha iska badan maxaan lahaa waa kana waa soo diyaaray baradhadii way soo leersatay hadda dubitaanka ku bilaabaa insha Allah ujeedaan horuu ka gaduudana ugu bisil yahay yani biseelka lama rabo kaliya wuxuu ribiyaa daqiiqad fahmay hal daqiiqo in oo maxaa lahaa dabka lagu haayo horena looga bixiyo ujeedaan hore dabka aad ku ridaysid oo ama aad ku dubaysidna waa inuu medium ahaada yani dhexdhexaad dab dheer xal ma noqdo yuusan kaa guban maxaa lahaa kalarkan quruxda badan oo kusoo baxaa waa ka guraneynaa kadibna waa isla joognaa soo kusoo baxo make sure inuu saliidaada ana hadda birtaawada ballaarneeda ku duwaa wuxuu ku fiicnaan lahayd tan godan fahmaysaa yani si saliidda u dhex gasho ayadoo dhanba oo hal kalar hal mar laakiin tan waxay ka rabtaa inay gidgidsid soo hadda waa biseel waa hal daqiiqo waa ka baxsanaynaa waa arkaynaa si noqoto markaad isoo kusoo baxo waa kana saan kusoo baxa quruxda badan wala ayaan tus dhexdiisa cheese-ki iyo baradhadii basal male wax kale male fiir maasha Allah waxa ujeedinaa jidmay cheese-ki waaye iska heli karahe maasha Allah tabaaraka Allah